haddaba daawadayaal qaybta labaad ee barnaamijkeena dayax gacmeedka waxaynu maanta ku falanqayn doonaa saldhigga weyn ee dayax gacmeedka. haddaba shirkadda weyn ee NASA waxay diyaarinaysaa 4 qofood oo u socdaalayo saldhigga weyn ee satellite-ka. 4tan qofood ayaa ah kuwa diyaarsan safarkooda, waxayna kala yihiin Nick Loman oo ah hogaamiyaha safarka Crew 5 waxayna u dhalatay dalka Mareykanka. Josh Cassett oo ah wadaha Crew 5 isaguna wuxuu u dhashay dalka Mareykanka. Koichi Wakata qorsheeyaha qaaska ah iyo muuqaynta qorsheeyaha Crew 5 wuxuuna u dhashay dalka Japan. Anna Kikina iyaduna waa qorsheeyaha gaarka ah Crew 5 waxayna u dhalatay dalka Russia. haddaba aan u gudagalno safarkeena 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 dhaqaaji. Copy all launch control and we are fine. waxaynu soo gaarnay saldhigga weynaa ee satellite-ka. waa aynu ku xiriirsanay. waxaa laga furay iridkii saldhigga satellite-ka. haddaba sida aad arkaysaan waa ay soo galeen. soo dhaweyn kadib waxay la xiriireen qoladii ay ka soo tageen kuwaas oo ah kuwa dhulka joogay. haddaba maxaa xiga? sidayna u dhaqmaan dadka ku dhex nool satellite-ka? baleela daawada. ku soo dhawaada. halkani waa saldhigga weyn caalamiga ah ee dayax gacmeedka. sida aad arkaysaan 4teeda barjaho waa un derbi ayaa igu hareeraysan dhammaan. waa meel degan runtii. dhankan waxaa ku dhedhegan qalabka aan ku shaqayno. sidoo kale dhan walba waxaan u aragnaa derbi. xitaa haddii aan sidaan isu jeedino waxay inoo tahay derbi, amaba haddii aan hoos isku fidiyaba. runtii fadhiga dhib maaha. saa doonta ayaad u fadhiisan kartaa, sidaa doonto ayaad u seexan kartaa. sidaan oo kale xaqiiqatan dadku waxay isweydiinayaan sida aan habeenkii u hurudno amaba aan u seexanno. halkan hoose waxaa ku yaalla qol, bal idiin soo tuso. isoo raaca. iminka waxaan gudaha u galayaa qolka jiifka. sida aad arkaysaan qolka jiifka waa sidaan. dhankan ayaan u seexannaa, balse wax dhibaato ma leh haddii aad isrogto xitaa. tani waa barkiintayna, ma baahnin mid kale. hadda waxaan u jiifaa dhan. haddaan doonana waxaan u seexan karaa dhanka kale oo waan isgedin karaa. bal aan idiin tuso sida kale aan u seexan karo. sidan ayaan isku rogayaa. haddii aan doono dhankan ayaan u seexanayaa, laakiin waxaan ku qasbanahay dhanka kale inaan u seexdo, waayo dhanka kale waxaa ii yaalla kombiyuutar si aan u isticmaalo. waxaa kaloo ii yaalla alaabtaydoo idil, xitaa dharkayga halkan hoose ayay ku jiraan. haddaba aan ka soo baxo gudaha qolkan. haddaba qolka jiifka kaa keliya ma aha. sidaad arkaysaanba dhankan qol ayaa ku yaalla, isaguna waa qol jiif ah. waa ay badan yihiin qolalku. xitaa halkan iga saraysa waxaa ku yaalla qol. sidoo kale dhankaygan kalena ee derbiga waxaa ku yaalla qol kale oo jiif ah. run ahaantii waa 4 qol oo iska soo horjeeda misna isku wada wareegsan. haddaba si aan idiin soo tuso waxyaabo kale ina kaxeeya aan idiin soo tusay.
runtii dadku waxay aad noo soo weydiiyaan sidee baynu ugu noolaan karnaa sida nolosha caadiga ah. Tusaale, qofka markii uu subaxii soo kaco kale, sidaad arkaysaan halkan kore waxaa noogu xaraysan cadagii iyo buraashkii, waxaa iga dambeeya waa suuligii. Tusaale, waxaynu soo baxsannaa buraashkii iyo koolgeedkii. Haddaba sidan ayaanu u miiranaa dhanka kore ayaanu aadinaa. Kadib waxaynu ku darnaa in yaro biyo ah. Biyuhuna waa kuwa loo isticmaala si dhibco ah. Sidaad arkaysaan waxaan marinayaa dhibic biyo ah. Dabcan waxaad isweydiinaysaan, haddiiba biyihii sidaa yihiin sidee baynu u cabnaa? Ogaadi, aan dhibic weyn sameeye. Ugu horeyn, dhibic weyn ayaad samaynaysaa oo biyo ah. Markii ay dhibicdaas samaysanto, sida ayaad ku cabaysaa, sida aad arkaysaanba. Laakiin dadku waxay isweydiiyaan, kadib markaynu cadana halkaynu ku tufnaa? Laba wado ayaa kuu bannaan. Waa inaad laqdaa amaba aad tiish iskaga tirtaa. Laakiin dadku waxay aad isku weydiiyaan ayaa waxay tahay, haddiiba biyihii ay sidaa u sabaynayaan, sidee baynu suuliga u isticmaalnaa? Fadlan ku daabo barnaamijka qaybihiisa kale. Mahadsanid.